بسم الله الرحمن الرحيم heshiiska shirka wada tashiga arrimaha waxbarashada wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya wasaaradaha waxbarashada dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa isugu yimid shirka wada tashiga waxbarashada kaas oo lagu qabtay magaalada Muqdisho intii u dhaxaysay 12 iyo 14 Agoosto 2026 wasiiru dawlaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya xildhibaan Nuuro Mustaf Mukhtaar ayaa si rasmi ah u furtay shirka muddadii uu socday shirka waxaa lagu soo bandhigay barnaamijyo doodo xogo muhiim ah iyo hadal jeedino lagu eegayay qaybaha kala duwan ee adeegyada waxbarashada dalka waxaa shirka si weyn uga qayb qaatay hoggaanka maamulka iyo howlwadeennada laf-dhabarka u ah wasaaradaha waxbarashada heer federaal heer dowlad goboleed iyo maamulka gobolka Banaadir ujeedooyinka shirka loo qabtay ayaa waxaa ka mid ahaa in uu dib u eegis ku sameeyo waxqabadka waaxaha kala duwan ee wasaaradaha waxbarashada heer federaal heer dowlad goboleed iyo maamulka gobolka Banaadir qiimeeyo waxyaabihii ka hirgalay talooyinkii iyo baaqyadii ka soo baxay shirkii wada tashiga arrimaha waxbarashada ee la qabtay bishii Agoosto 2025 xoojiyo iskaashiga iyo wada shaqaynta u dhaxaysa wasaaradaha waxbarashada heer federaal heer dowlad goboleed iyo maamulka gobolka Banaadir muddadii 3 cisho ahayd ee uu shirku socday waxaa si qoteer loogu lafaguray guulaha la gaaray caqabadaha lala kulmay iyo talooyinka la soo jeediyay waxaa si gaar ah diiradda loo saaray falanqaynta la xiriirta dhinacyada baahinta tayada iyo maamulka waxbarashada baahinta waxbarashada si sare loogu qaado baahinta iyo u sinaanta adeegga waxbarashada wasaaradaha waxbarashada heer federaal heer dowlad goboleed iyo maamulka gobolka Banaadir waxa ay kow soo jeediyeen in sare loo qaado badqabka fayadhowrka iyo dhiraynta goobaha waxbarashada labo isku raaceen in dhammaan goobaha waxbarashada ay ka muuqdaan astaamaha qaranka sida calanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya saddex bogaadiyeen qoondada miisaaniyadeed ee dowladda federaalka Soomaaliya u sameysay in lagu maalgeliyo barnaamijka quudinta dugsiyada waxa ayna soo jeediyeen in la ballaariyo lana joogteeyo afar bogaadiyeen go'aanka maamulka gobolka Banaadir ee taakulaynta dugsiyada dadweynaha taas oo qayb weyn ka qaadatay khidmadaha iyo deegaanka dugsiyada inay noqdaan goobo ku habboon waxbaridda waxaa sidoo kale ku dhiirigelinaynaa hogaamiyayaasha dowlad goboleedyada iyo guddoomiyayaasha degmooyinka inay qaataan go'aan la mid ah kan maamulka gobolka Banaadir isku raacaan in qodobka shanaad isku raacaan in laga howlgalo qaadashada hubinta 4,000 oo macallimiinta dawladda ee cusub sanad dugsiyeedka 2026-2027 lix ansixiyeen kaltirsiga waxbarashada ee sanad dugsiyeedka 2026-2027 toddobo isku raaceen horumarinta waxbarashada dadka waaweyn lana kordhiyo tirada iyo tayada dugsiyada bixiya adeegaas sideed isla qaateen dhamaystirka tirakoobka iyo diiwaangelinta dugsiyada quraanka iyo macaahidda shareecada ee dalka tayada waxbarashada si loo xoojiyo sarana loogu qaado tayada waxbarashada dalka wasaaradaha waxbarashada heer federaal heer dowlad goboleed iyo maamulka gobolka Banaadir waxa ay adkeeyeen hubinta dhaqangalka go'aankii mamnuucidda isticmaalka taleefanada casriga ah smartphones iyo qalabka la midka ah goobaha waxbarashada xilliyada ay socoto waxbarashada si loo xakameeyo saameynta taban oo ay ku leeyihiin waxbaridda iyo waxbarashada labo isla qaateen in qiimeynta qaran ee fasallada 3 iyo 6 la dhaqan geliyo sanad dugsiyeedka 2026-2027 saddex bogaadiyeen dib u eegista manhajka qaranka kuna tilmaameen tallaabo wanaagsan oo waqtigii loo baahnaa timid afar soo jeediyeen in la dhammaystiro dib u eegista saabka imtixaanaadka qaranka shan isku raaceen dhammaystirka iyo meelmarinta saabka kartida macallinka lix ansixiyeen hagaha qaranka ee fulinta isqiimeynta dugsiyada toddobo bogaadiyeen isweydaarinta macallimiintii ilaaliyaasha imtixaanka ee dowlad goboleedka waqooyi bari isla qaateen in sanadka 2027 uu noqdo sanad loo asteeyay tababarka macallimiinta ka shaqaysa dugsiyada dalka sagaal soo jeediyeen in la xoojiyo xiriirka iyo wada shaqaynta waalidka iyo maamulka dugsiyada si sare loogu qaado dhaqanka suuban ee ardayda toban ku baaqeen in la dardargeliyo habsami uga faa'iideysiga mimbarka daabuurka dugsiyada si sare loogu qaado anshaxa iyo dhaqanka wanaagsan ee ardayda 11 soo jeediyeen in la dardargeliyo casriyeynta agabka waxbarashada farsamada gacanta iyo mihnadaha
iyada oo lagu darayo hanaanka waxbaridda qayb fogaan darsi ah. 12 isla garteen in la isku xiro mushaar bixinta iyo xaadirinta shaqada macalinka. 13 in guddiga tacliinta sare lagala shaqeeyo daabagelinta kormeer tayo leh oo lagu sameeyo jaamacadaha dalka. Maamulka waxbarashada iyada oo laga duulayo ahmiyadda ay leedahay in la taabageliyo hoggaan maamul iyo habraacyo tayo leh oo haga waxbarashada dalka. Wasaaradaha waxbarashada heer federaal, heer dowlad goboleed iyo maamulka gobolka Banaadir waxa ay ku baaqeen in sare loo qaado u qareemidda iyo maalgelinta waxbarashada iyadoo aysan u kala harin waalidka, maamulada heer degmo, heer dowlad goboleed iyo gobolka Banaadir. 2 ku baaqeen in loo diyaar garoobo lafakurka xaaladda waxbarashada dalka iyo dejinta qorshaha horumarinta waxbarashada ee xiga iyada oo lagu saleynayo qorshaha isbeddelka qaranka. 3 in dib loo hubiyo xogta tirada ardayda, macallimiinta iyo goobaha waxbarashada ee lagu soo ururiyo mareegta maamulka xogta waxbarashada ee EMIS. 4 in la dardargeliyo dhaqangelinta sanduuqa horumarinta waxbarashada. 5 isku raaceen in shirka wadatashiga arrimaha waxbarashada ee xiga in lagu qaban doono magaalada Laascaanood ee caasimadda dowlad goboleedka Waqooyi Bari Soomaaliya. mahadcelin waxaa mahad dhammaanteed iska leh Allah subxaanahu wa tacaala oo inoo suuro geliyey in shirkii wadatashiga arrimaha waxbarashada uu noogu qabsoomo si habsami leh. shirka wadatashiga arrimaha waxbarashada waxa uu si weyn ugu mahadcelinayaa wasaaradda waxbarashada federaalka oo martigelisay shirka.